الرحمن الرحيم shalay oo ay taariikhdu ahayd 11 bisha tobnaad ee 2024 waxaa weerar daandaansi ah ku soo qaaday fadhiisimada hore ee duleedka Qorlugud ay ku leeyihiin ciidamada maamulka ee SSC Khaatumo maleeshiyada gooni ugoosadka ah ee taliska Hargeysa. weerarka iyo daandaansiga waxay kala kulmeen jab iyo khasaare ba'an oo naf iyo maalba isugu jira. mar labaad maanta oo ay ahayd 1 bisha 11 ee 2024 waxaa weerar kale saaka subaxnimadii oo laba jiha soo qaaday maleeshiyada gooni ugoosadka ah ee maamulka Hargeysa. mar labaad waxay kala kulmeen difaacyada maamulka SSC Khaatumo khasaare ba'an oo isugu jira naf iyo maalba. waxaa laga qabtay gaadiid, waxaana laga qabtay maxaabiis warbaahinta lala wadaagi doono. waxaa la farayaa dhammaan ciidamada maamulka SSC Khaatumo ka jawaabidda daandaansi kasta oo ku yimaada difaacyada iyo xuduudaha maamulka SSC Khaatumo. waxaanu caddaynaynaa taliska Hargeysa inuu qaadi doono mas'uuliyadda iyo cawaaqibta ka dhalan doonta weerarada iyo daandaansiga isdaba joogga ah ee uu kaga dhuumanayo doorashada uu u madlan yahay. waxaanu caddaynaynaa sidoo kale inay qaadi doonaan mas'uuliyadda iyo cawaaqibta ka dhalata xaaladda nabadgelyo xumo ee ay joogteeyeen ee laga abuurayo geeska Afrika oo noqday maamul fidna ku ah dhammaanba nabadgelyada geeska Afrika. waxaa la farayaa dhammaan ciidamada maamulka SSC Khaatumo inay galaan heegan buuxa iyo ka jawaabidda weerar kasta oo daandaansi ah oo lagu soo qaado xuduudaha bulshooyinka reer SSC Khaatumo. mahadsanidin.